kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba khiyaarta hawada nagala xidhiidha email kaste oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doona hadduu rabiidmo wararkii ugu dambeeyay ee dalkaasi Ethiopia qodobada aan daawadayaal idiin hayno ee aad ku maqli doontaan barnaamijkeena faaqidaada waxaa ka mid ah sargaal sare oo ku nool dalka Britain waraysi uu siinayay mid ka mid ah warbaahinta dalkaasi Britain ayuu ku sheegay in kala diridda ciidamada ee liyu booliska ee dalkaasi Ethiopia danta laga lahaaba ay ahayd kala diridda ciidamada liyu booliska ee deegaanka Soomaalida warbixin xasaasi ah uu tibaaxay sargaalkaasi ayuu ku sheegay in ay ahaayeen ciidamada liyu booliska ee dowlad deegaanka khatar weyn oo ku soo foolay dalkaasi Ethiopia waxaa kaloo daawadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doonaa maalintii shalay ayay ciidamada liyu booliska laga xaadiriyay xeryaha kuwaasi oo diiwaangelin lagu samayn doono waxaana bilaabatay kala diridda ciidamada liyu booliska waxaa kaloo daawadayaal ka hadlay arrintan ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia wuxuuna sheegay in xisbiga barwaaqi haatan hoggaanka u haya dalkaasi Ethiopia uu fuurayo buuro dhaadheer taasi oo ay ka hor imaan karaan caqabado balse aan loo joojin karin waxa uu tilmaamay in aan gabi ahaanba la xusi doonin ambaba aan la aqbali doonin cid kastoo isku dayda inay hor istaago geedi socodka dalkaasi Ethiopia hormuudka ka yahay xisbiga barwaaqo waan ku qaadaa dhigi doona xogihii ugu dambeeyay dalkaasi Ethiopia iyo khudbadii uu jeediyay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed waxa kaloo daawadayaal barnaamijkeena aan ku qaadaa dhigi doona dagaalada ka socda dalka Suudaan oo galay maalintii labaad ayaan daawadayaal barnaamijkeena ku qaadaa dhigi doona Erdogan oo 29 bari waa madaxweynaha Turkiga ay uga hadhay xilliga doorashada ayaa la rajaynayaa mar labaad inuu ku soo noqdo dalkaasi Turkiga taasi oo u muuqata inuu awoodiisa uu soo bandhigay maalintii shalay xilli uu booqday deegaanada Kurdishka ee dalkaasi Turkiga ayadana warbixin xasaasi ayaan daawadayaal idinka haynaa waxaan meesha ka maqnayn wararkii Soomaalida waa Somaliland iyo xogaga SSC oo laftigooda hubuursi xoogan u dhaxeeya iyo waliba abaabul xoogan oo ay wadaan xogaga SSC taasi oo ay ku doonayaan gabi ahaanba inay ku qabsadaan deegaanka Goojacade waa deegaanka militariga ee ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka Somaliland waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada barnaamijka waxay gala qayb galaya saaxiibkay ninka lagu magacaabo Shido oo inta badan ka faalado xaaladihii ugu dambeeyay dalkaasi Ethiopia Shido ku soo dhaw studio waan dhawaay saaxiib barnaamijku maanta waa labadeena sida aad la socoto waynu daran doorin doonaa hadduu rabiidmo qodobadan haddii aan ku horeyno kala diridda ciidamada liyu booliska iyo sargaalkaasi waxyaabo waraysiga bixiyay ee ku nool dalkaasi Britain muxuu tibaaxay bal waad soo daawatay oo inta badan aad baad u soo fiirfiirisay aad iyo aad baad u mahadsantahay Axmedow sargaalkan horta waa nin professor ah oo u dhashay qoomiyadda Axmaarada aqoon-yahana muddo dheer ku noolaa dalka UK daraasadeena xaaladaha amniga iyo xaaladda guud ee dalweynaha Ethiopia sargaalkan waraysi wuxuu siiyay warbaahin laga leeyahay dalkaasi Britain waxa uu sheegay dalweynaha Ethiopia waayadii ugu dambeysayba in uu dal aan xaaladiisa la qiimeyn karin ama meesha uu ku socday uu ku sheegay xaalad haabaan meel inuu ka sii dhacay hase yeeshee aad moodid inuu hadda dalka Ethiopia rajeeyay sheegay ayadoo arintaasi uu sabab uga dhigay talaabada uu qaaday ra-iisul wasaaraha Ethiopia ee hubka dhigista ciidamada liyu booliska ee dowlad deegaanada hase yeeshee sargaalkani wuxuu hoosta ka xariiqay in ay caqabada koobaad ama dhibka ugu weyn Ethiopia ay wajahaysay iyo Ethiopia hukuumad la'aanteeda ay ahayd ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida uu ku sheegay inay Soomaalidu waayadii ugu dambeysayba ay dhisanayeen cudud military oo aad u awood badan uu sheegay inay si bilaha si usbuuclaha ay soo saari jireen ciidamo aan ka diiwaan galsanin dalweynaha Ethiopia oo awood military ah soo ku sheegay inay ciidamada deegaanka Soomaalidu ay gaareen awood ay militariga Ethiopia ay u barbar dhigaan ama gabi ahaanba ay kaga awood roonaan karaan sargaalkan waxa uu sheegay kala dirka ciidamada liyu booliska in ujeedadii laga lahaa oo kaliya in horta waxa uu sheegay waxaan inay soo daraaseeyeen khubro Ethiopiana ayna sheegeen Soomaali maadaama hadda ay awood ciidan yeelatay ana si toos ah oo barakaal loo dhigi karo hubka dhiga oo ayaga si toos ah loo aadi karin waa in wada loo soo maro la raadiyaa waa in lagu soo marsoodo ciidamada liyu booliska ee dowladda maadaama qolo walba ay magac liyu boolis wadato
haba la kala awood badnaado, haba la kala taya badnaado, haba la kala ciidan badnaado, haba la kala karti badnaado. hase yeeshee arrintu ay magaca liu bolis kolka laga wadatay in la dhaho Ethiopia oo dhan ba hubka laga dhigaya. waxa uu sheegay sargaalkani in ay dowlad deegaanada dalka Ethiopia markii Soomaalida laga reebo waxooda kale in maleeshiya iska qayilaya ahaayeen goboladooda iska jooga aan hawlgal iyo militariga shaqadiisa iska watay ayaguna ay xeryahooda iska joogeen halkooda ay qaadka iskaga cuni jireen sida markuu tusaale ahaan wuxuu soo qaatay gobolka Tigray markii dagaalka lala galay axmaaradu wuxuu yiri maleeshiyadu ma iska ahaayeen ayuu hal milyan oo maleeshiyada ba iska didayeen wax tayo oo dagaalkana ay ku lahaayeen ma jirin ciidanka militariga bay kaabayeen oo hubkii gadaal oo geynayeen. marka waxa uu sheegay wadada kaliya loo socday in ay ciidamada liu booliska dowladda deegaanka Soomaalida arrintaana in lagu guuleystay isagoo ugu hambaliyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia wadada uu qaaday iyo sida uu Soomaalida madaxooda ugu qanciyay oo madaxweyne Mustafa waliba wuxuu yiri oo Ethiopia-nimada si weyn u aaminsan. waxaana dowladda deegaanka Soomaalida ku sheegay inuu Ethiopia-nimada aaminsan yahay markii loo soo bandhigay barnaamijkan liu booliska dowladda deegaanka Soomaalida in ay caqabad noqon doonaan hadday 5 sano oo sii socota ay jiraan inay dalweynaha Ethiopia ay khatar gelin karaan. wuxuu tusaale ahaan soo wuxuu yiraahdaa hadii Mustafa Cagjar uu meesha dhaafo waxa tusaale ahaan waxa nin lagu khaldamay kursiga fuul kareebay oo qabyaalada iyo goonigoostka aaminsan bir Mustafa Maxamed Umar ma aaminsan bir goonigoostad inay Soomaalida Ethiopia ka go'i karaan inay dal gaar ah noqon karaan inay Soomaalida xorta raaci karaan ma aaminsan wuxuu aaminsan in dalka Ethiopia yahay wada kasta oo Ethiopia ka lagu badbaadin kara geed gaaban geed dheer loo furiyo aaminsan yahay bir Mustafa Maxamed waxa lagu qanciyay bir inuu ciidamada liu booliska ay khatar yihiin kursigan adigu waliga kuma sii waarayso waad ka digin ninka laakiin fooli doona ama garanay fikrad ahaan waxa aaminsan hal maalin buu iska din karaa ciidamadan hal mar buu ku shuban karaa oo fikrad ka bedeli karaa maalkan caqabad waxay noqonaysaa in Ethiopia oo dhan ay u barbar dhigi karin maadaama ciidamada tiradooda ay kortay tayadooda ay kortay ciidankana ay noqdaan ciidan dheeri dagaalamaya oo niman military ah oo dagaal aan loo tilmaamaynin. marka waxa la dhihi karaaba ciidamada liu boolisku waxay noqdeen ciidamadii awoodoodu ay soo shacbaxday awoodoodu way soo shacbaday adduunka oo dhan baa laga aqoonsaday meel kasta dagaalada guulaha ay ka gaarayaan horumarada ay ka sameeyeen amniga deegaanka sida ay bulshada isku dibarideen hawshaas ay Ethiopia u cuntay weeyday. marka ninkaas wuxuu u ambaliyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia inuu guul weyn ka gaaray dhanka Ethiopia oo sheegay hawshaasi in oo ay shaqo muhiim u ra'iisul wasaaraha waqti soo uu hambaliyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia sida fudud uu ku maalmaha gudahooda uu ku soo afjaray ciidamada liu booliska. haddaan ku soo socono wali dowladda deegaanka Soomaalida dowladda deegaanka Soomaalida maalmaha laga bilaabay ilaa maanta waxa ka socdo kaligiisa balaadhan guud ahaan gobolada liu booliska laga soo ururiyay iyadoo xuduudaha iyo dhammaan laga soo daabulay. maamulka dowladda deegaanka Soomaalida iyo maamulka ciidanka liu booliska waxay qabsadeen in maalmaha loo kordhiyay ciidamada ku soo gaarsiinayaan xarumaha waaweyn maadaama ciidamadu ay deegaanka ku kala baxsan gobolada dhan ay joogeen xuduudaha Soomaaliya ay joogeen ammaanka ay qayb libax ka qaadanayeen inaan hal maalin ciidamada xeriyada lagu geyn karin. hase yeeshee wali waxa socota daabulaada ciidamada gaadiidka dowladda lagu soo daabulayo iyo kuwa rayidkaba ayagoo la soo daabulayo xeriyaha waaweyn ee garab casi iyo burqad lagu xareynayo halkaas ayaa diiwaangelin lagu sameeyaa kadib diiwaangelinta marka la sameeyo ciidamadu waxay kala marayaan jaranjarooyin